inta ay Puntland jirtay haddaan dhulbahanta jiri lahayn wallaahi billaahi tullaahi galmudug burtun la imaan lahayd wallahi burtun la imaan lahayd 772 nin baa ku dhintay dagaalkii wax weeye Gowjacatay 700 dhulbahantay ahaayeen 72na waxay ahaayeen harti xeerka raggaan naqaanaa weli ma aragtay qof dhulbahanta oo mana sheeganaya hadii la ku reeb Puntland oo inta soo baa naga dhimatay mid maxaa u dambeeyay kaala sii sido 47 nin dhulbahanta ku dhintay caalamiskaad geeridooda dhimashadooda waa la qariyaa kama aanun hadlin arinta hiilka waa ugu celiyay hiil baanu galay ciyaalada Puntland Fires ma jawaabi jirino qalbada ma jabin jirino waxa eegay fursadda caawa kalena caawa la sugayay laakiin caawa ka jawaabaya ninka hadalka u soo dhiibay ee yiraahdo waxbaan xoreynay abaal baanu galay waa isaga weeyii atiin mulaaxa weeyii hadaba Puntland haddaanan anagu jiri lahayn dhulbahanta especially wallaahi billaahi tulaha naasaha la dheereen la naasaha 7 sano Puntland jirta cidda u dhimanaysay ee futadooda difaacisay anaga weeyii siyaasiyiinta yeelidka Puntland way qarsan yihiin kasoo bilow gaalkacyo dagaalkii 1991 1993 ee ka dhacay gaalkacyo qaybtii aanu ka qaadanay waa la ogaa inta wiil ee dhulbahanta ku dhimatay waa la garanaya Puntland asaaskeedii qiimaha aanu ku bixino waad garanaysaa ilaa gaalkacyo suujiga garamaan waxa weey hadii la ku royahay almiskaad oo maanta ugu dambaysa oo dagaal ka socdo dhulkayeegi oo intaas oo furimood aanu ku jirno ilaa Cerigabo ilaa iyo Shangeed ilaa Qorlugud ilaa Buqdarkeen ilaa Salinta intaasba difaac kaga jirno baa ragga dhulbahante ay ku dhimanayaan caalamiskaad dhimashadooda 47 ay maraysa Abdullaahi Yusuf baan ogeyn Puntland madaxweyne ka soo noqday xamar inuu tago oo madaxweyne Soomaaliyeed ka noqdo 6,000 oo wiil dhulbahanta waxa weey hadii la kuriyahay difaacday oo dhimatay waxa ugu qaalaysan in qof kula garab istaagana waa naf weey inta ay Puntland jirtay haddaan dhulbahanta jiri lahayn wallaahi billaahi tullaahi galmudug burtun la imaan lahayd wallahi burtun la imaan lahayd intaasoo abaalayada jirto xeerka raggaan naqaanaa weli ma aragtay qof dhulbahanta oo mana sheeganaya hadii la ku reeb Puntland oo inta soo baa naga dhimatay mid maxaa u dambeeyay kaala sii sido 47 nin dhulbahanta ku dhintay caalamiskaad geeridooda dhimashadooda waa la qariyaa kama aanun hadlin mana jeclaan ka waxa soo dhayada la soo maray weli mana sheegan 10,000 wiil baan ku weynay Puntland ay maanta dowlad noqoto hore anagu mana sheeganay ma la arkay hadda koor baxay xoolo dumar baa leh xoolo dumar waraaba ka dhaartay islaamba waxa la yiri xoolay lahay kadib waraaba neef ka cunay waraabihi markuu neef ka cunay islaantii meel walba waxay marisay waraaba neefiga cunay waraaba neefiga cunay waraaba neefiga cunay waraabiga markaa maqlay markaas wuxuu yiri waa ka dhaartay xoolo dumar waxaan tusaalaha u soo qaatay war hal maalin baa dagaalkaasi ay soo galeen oo anagu aan ogeyn 22 bari baa dhulbahanta kaliya dagaalamayay isaaq iyo wax weey huwantoodii ay dhaqaajin kar waayeen halka maalin wixii naga raacay waa u jeednaa wata ilaa hadda waan haysataa 772 nin baa ku dhintay dagaalkii wax weeye Gowjacatay 700 dhulbahantay ahaayeen 72na waxay ahaayeen harti bal percentage-ka uu qaybay Ilaahay baa idin ku dhaashay nin 700 ka dhimatay baa ninkii ay ka dhimatay ama dhowr 20 ka nin maalin walba meel wuxuu qoray waa ku xoreeyay waa ninkii 700 ay ka dhimatay